xuska maalinta caalamiga ah ee la tacaalidda iyo yaraynta khatarta aafada ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirada wasaaradaha horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland qorsheynta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa taliyaha ciidanka damdamiska mas'uuliyiin iyo hay'adaha wada shaqaynta leeyihiin hay'adda diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Aw Jaamac Xirsi waxaana uu yidhi waxaynu isugu nimi inaynu halkan ku qabanno xaflad daaran maalinta aafooyinka adduunka ama disasterka adduunka 13 October maalinta aafooyinka adduunka iyo sideedaba marka laga hadlayo aafooyinka dabciga bini aadamka iyo wacyiga nolosha ayay la socdaan sida uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo yiri tilkal ayaamu nudaawiluha bayna an-nas waxa isbedbedelaya nolosha iyo ayaamaha iyo wacyiga lagu jiro maalin barwaaqo ah maalin fiican maalin aad ladan tahay maalin dhibaato adduunka kama maqnaato dhibaato sida darteed muhiimadda aynu ka leenahay waxa weeye in fariimaha iyo digniinaha aafooyinka aynu isu gudbino dabeetana lagu dhaqmo si ay u yaraato khatarta dhibaatadaasi ay yeelanayso waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha ciidanka damdamiska waxaana ay ka warameen xuska maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay hay'adani wadanka waxay nagu habsaday ayax oo runtii sanadka farabaas nagu haya haddaan nahay muxuu ahay beerleydii saa darteed qayradhaan badan dibadeed iyadoo runtii xusid mudan hay'ado badan oo wadanka jooga inay wax badan nala qabteen waxaanu sameynay 2019 markuu waxyaabaha ka bilaabmay iyo waxba kantarool baanu wasaaradda beeraha sameynay ilaa 5 diyaaradood baan wadanka keenay oo kuwa la dagaalama ayaxa oo runtii saddexna aan imiga ay joogaan labana dhawaan ay markay shaqadoodii dhameeyeen ay naga noqdeen aniga waxa la tahay inaynu istiraatiijiyad yeelano aynu isku xidhno gurmadka degdega iyo ka baxa laga baxayo maxaan ku radaa xariyaha kan oo noloshii dadka dib loogu celin lahaa ama nolol kale oo ay doortaan oo ay iyagu isku kafeyn karaan loogu soonin lahaa anoo ku hadlayo magaca wasiirkii arrimaha gudaha oo isoo wakiishay waxaan halka ka sheegaynaa inaan noqono qolada aafada hay'adda Nadford mar alaaliya markii wax yimaadaan qolada ugu horeysay ay soo abaaraan ee la shaqeynaysa inaanu nahay diyaarna u nahay inaanu mar walba kala hawlgalayno yaraynta aafada iyo diyaar garowga anagu ka maamul wanaag ahaan waanu soo dhaweynaynaa shaqooyinka ay hay'addu wado waxaanu kaloo jecelahay siyaasadda muxuu ahay disasterka ee hay'adda Nadford leedahayna runtii inaan wadaagno si aan u eegno ilaa halkay gaadhisantay marka la sabaynayo daraafkeeda amba ay jirto hay'adan marka abaaruhu jiraan wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa imka abaarihii horena dhaafay 4 booyadood oo dabdamisa ayaa ka shaqeynaya abaarihii labana galbeed ka shaqeynayeen labana bari ka shaqeynayeen marka hay'adda waxaan leenahay maxaa la yiraahdaa wada shaqayn fiican hada aafo maqashaana waa shaqo qof walba uu leeyahay Faysal Ali Sheekh Maxamed gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranka ayaa ka waramay tallaabooyinka ay qaadeen labadii sano ee ugu dambeeyay hay'adda diyaargarowga aafooyinka ee kaydka raashinka qaranku iyo doorkii ay ka qaadatay xoojinta gurmadka dadkii ay la soo darseen dhibaatooyinkii kala duwanaa ee sanadihii hore ku soo dhacay bulshada Soomaaliland isagoona ka waramay xuska maalintan iyo ahmiyadda ay leedahay waxaanu sameynay siyaasadii maareynta aafooyinka disaster risk management policy kaasoo insha Allah golaha wasiirada horgeyn doona waxaanu sameynay qorshihii ku talagalka gurmadka national disaster contingency plan waxa kale oo sameynay istiraatiijiyadii u diyaargarowga aafooyinka national disaster preparedness strategy oo iyaduna qoraalkeedii iyo dokumentkeedii runtii u diyaarsan yahay waxaanu diyaarinay habraaca gurmadka aafooyinka disaster response standard operating procedure bil walbana runtii waxaanu soo saarnaa report xaaladda dalka waxaanu la shaqeynaa hay'ado fara badan oo caalami ah
oon runtii uga mahad celinayno gargaarka iyo kaalmooyinka ay ummadeenna runtii ay gaadhsiiyaan. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici ayaa gabagabadii halkaasi ka hadlay waxaana uu ka warramay ahmiyadda ay maalintani u leedahay bulshada caalamka. marka runtii 2 sannadood aad waxaa loogu dadaalay in loo diyaargaroobo si alle sidii maartay emergency-ga mar walba dhacaya xaaladaha degdega in meeshii loo gurman lahaa meeshii wax loo dhig lahaa in loo diyaargaroobo waxaa sida dhammaan inuu baahanay kula hawlkan aad ugu lafagurtaan dadkeena in lagu wacyigeliyo intaynu gacmaha ku samaynayno gacmaheena dhirtii ku baabiinayno inaan biyo qabanaynin yaa loo baahan yahay dadkeena inta badan aad iyo aad looga wacyigeliyo oo runtii kula hawleedkani aad ugu lafagurtaan oo yarayntii waxa keenaysa in dadka ka wada qayb qaato uu fahmo masiibadani aynu gacmaheena ku samaynayno inuu dadka wada fahmo geedka uu goynay qiimo leeyahay biyaha yare ama laagta yare ka dhex dilaacaysa beertiisa laagooyna gebido beertiisaba kala badhay marka waxaanu baanay bilaadanku wax walba ka horeeya wacyiga inaan wacyigeena kor loo qaado oo sidii looga hortagi lahaa maartay ama loo yareyn lahaa khataraha ay maartay masiibooyinka dabiiciga ay keenayaan iyo kuwa aynu gacmeena ku samaysanayno. xamse qurbaani warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.